haweeneydan waa haweeneydii ugu horeysay oo iyadoo dumar ah ka mid noqoto hoggaan ciidan mid ka mid ah dalalka carabta. waxay sidoo kale noqotay haweeneydii ugu horeysay ee dunida carabta kaalinta koowaad ka gasha marka ay timaado darajadan aan kuu sheegi doono. waxaana loo yaqaanay hooyada dagaalyahanadii shahiiday. haweenku mannaan gaaraya ayayna ka caawisay waxbarasho. haweeneydanna xitaa haddii aad sawiradeeda ka raadisid internetka wax 10 sawir aanan dhammayn ayaad ka helaysaa. haddaba iyadoo saameyn lahayd xilna ka soo qabatay mid ka mid a dalalka carabta, taariikhda haweenkana saameyn weyn ku leh, maxaa sawiro aad u tiro yar looga hayaa mise sawirada ayaysan jecleen? bal ku soo dhawow bilow ilaa dhammaad ka sheekaynta taariikhda haweeneydan. tani waxay ahayd haweeney aanan wax badan ka duwaneen haweenkeena Soomaaliyeed, aqoon ahaan marka ay timaado iyo karti ahaanba. waxayna ahayd haweeney aanan cabsan, kana dhalatay qoys siyaasadda caan ku ahaa. waana haweeneyda keliya uguna horeysay ee saameyn ku dhex yeelata mid ka mid ah dalalka carabta. haweeneydan magaceedu wuxuu ahaa Rawya Shamis Eldin Ateya, laakiin waxaa loo garan ogaa loona yaqaanay magaca Rawya Ateya. waxay ku dhalatay gobolka Giza ee dalka Masar 19 Abriil 1926. waxay ku soo barbaartay qoys siyaasad ahaan firfircoon. aabaheedna wuxuu ahaa xogayaha guud ee xisbiga liberaaliga ee waafdi ee Jarbiya. dhaqdhaqaaqiisii siyaasadeedna wuxuu u horseeday in xabsiga la dhigo isaga. Ateya lafteeda waxay ka qayb qaadatay mudaharaadyo iyadoo aad u da'yar, waxayna ku dhaawacantay mudaharaadyadii lagaga soo horjeeday Ingiriiska 1939. marka loo eego waxbarasho ahaan waxay qaadatay dhowr shahaado jaamacadeed oo dhinacyo kala duwan leh, oo ay ka mid yihiin shahaado sare oo cilmi nafsi ah, shahaado sare oo saxaafadda ah, iyo shahaado culumta islaamka ah. Rawya kaalinteedii ciidanka ay ku lahayd ayaan eegayaa. sanadii 1956 Rawya Ateya waxay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee loo magacaabo sarkaal ka tirsan ciidanka xoreynta Masar, waxayna door firfircoon ka qaadatay dagaalkii Suways xilligaas oo Masar ay ku duuleen boqortooyada Ingiriiska, Faransiiska iyo Israa'iil. sidoo kale waxay ka caawisay in ka badan 4,000 oo haween ah in ay u tababarto gargaarka degdega ah iyo kalkaalisanimada muddadii uu dagaalka socday. waxayna heshay darajada kabtanka cutub ka tirsan ciidamada commandoska ee haweenka Masar intii lagu guda jiray dagaalkii Oktoobar 1973. waxay madax ka ahayd qoysaska shuhadada iyo askartii ku baxay dagaaladaasi, iyadoo ku kasbatay naaneysta hooyada dagaalyahanada shahiiday. waxa ayna heshay dhowr abaalmarin oo ciidan oo kala duwan. haweeneydan abaalmarino kala duwan oo ciidan ayayna ka heshay dowladdii Masar, gaar ahaan ciidanka 3aad, biladda 6 Oktoobar iyo biladda ciidamada qalabka sida. Rawya iyo kaalinteedii baarlamaanka ayaan eegaynaa, iyo sida ay kaga mid noqotay baarlamaanka dalkaasi Masar, haweeneydii ugu horeysay ee golo baarlamaan ka mid noqota. 1956 waxay ahayd ansixintii dastuurka, waxaana fududeeyey madaxweyne Jamaal Cabdinaasir oo waqtigaasi hogaaminayay dalkaas. doorashadii ugu horeysay ee dastuurka cusub ayaa la qabtay sanadkii xigay ee 3 Luulyo 1957. waxaa xusid mudan in 16 dumar oo keliya ay ka tartameen in ka badan 2,000 oo musharax. ra'yi ururin la sameeyey waqtigaas ayaana muujisay in 70% ragga Masar ay ka soo horjeedaan fikradaha ah in haweenka ay kuraasta baarlamaanka ka helaan. si kastoo ay ahaataba, Ateya waa ay gudubtay oo waxay heshay 110,807 cod codadka deegaankeeda, waxaana laga soo doortay magaalada Qaahira ee dalka Masar. wareegii labaad waxa ay sheegtay in ay jirtay eexasho aad u weyn. marka laga soo tago doodaha, waxay khibradeedu ciidan u isticmaashay hanti siyaasadeed ahaan. Ateya waxay fadhiisatay kursigii golaha qaranka 14 Luulyo 1957, inkastoo haweeney kale oo lagu magacaabo Aamina Shukri lagu doortay doorashadii 1957. haddana guusheeda waxaa lagu dhawaaqay 22 Luulyo ee isla sanadkaas. sidaas darteed Ateya waxay noqotay haweeneydii ugu horeysay ee baarlamaanka Masar iyo dhammaan dunida carabta. intii ay ku jirtay baarlamaanka, Ateya waxa ay u heelisay xuquuqda haweenka, waxayna ku adkaysatay in haweenka shaqaalaha ay helaan xuquuqaadkooda, gaar ahaan xilliyada fasaxa umusha, iyaga oo aanan laga jaran mushaaraadkooda, iyo dhammaan xuquuqdii ay ku lahaayeen xarumaha ay markaasi ka shaqaynayeen. guushii Ateya ee 1957
waxay ahayd mid aad u gaaban. 2 sano kadib waxay ku guuldareysatay tartankeedii dib u doorashada. si kastaba ha ahaatee waxay sii ahaatay xubin firfircoon oo ka mid ahaa bisha cas. 25 sano kadib guuldaradii doorashada, Chataya waxay ku dadaashay inay soo nooleyso shaqadii baarlamaanka, waxaana 1984 loo doortay golaha shacabka iyadoo huwan calanka xisbiga dimuqraadiga qaranka. waxaa kaloo oo sidoo kale 1993 madax ay ka noqotay golaha dadweynaha iyo qoyska ee Jiisa ilaa ugu dambeyntii ay geeriyootay 1997 iyadoo da'deedu ay tahay 71 sano jir. haweeneydan waa haweeneydii ugu horeysay ee ka mid noqota baarlamaanka dunida carabta. haweenka ayayna ugu jirtaa kaalinta koowaad marka laga hadlayo in haweenka siyaasadda ay ku biiraan iyo inay ka mid noqdaan baarlamaan. dunida carabtana waana haweeneydii ugu horeysay haweeneydan. muuqaalkii maanta aan kaga hadlaynay Rawya Chataya intaan ayaan ku soo koobaya. tan muuqaalkeena xiga maalinta berri waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo amaana Allah.